iyadoo maalintii labaad uu guud ahaan dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland si rasmi ah uga socdo imtixaanka shahaadiga ah ayaa barasaabka gobolka Saraar iyo isuduwaha wasaaradda waxbarashada gobolka waxay soo kormeereen isla markaasna soo indheeyeen sida uu imtixaanka shahaadiga ah uga socdo degmada Wadaamago oo ka tirsan gobolka Saraar. Mas'uuliyiintani ayaa waxay mid u galeen galaasida kala duwan ee imtixaanku ka socdo, waxaana halkaasi mas'uuliyiintani warbixin ku siiyay munaaqibka wasaaradda waxbarashada ka socda ee isugu imtixaanka sida maamulayaasha dugsiga hoose dhexe Goosarad iyo dugsiga sare oo Faarax iyo mas'uuliyiinta maamulka degmadaasi Wadaamago ee dugsiga dhexe. goobtana waa Goosarad waxa ku wada galaya labada dugsi ee Faarax iyo Goosarad. markaa waxa imtixaanku u bilaabmay si wanaagsan oo qurux badan oo degan oo nabadgelyo leh. magacayga waxa la aadan ila ducaale waxaan ahay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Goosarad ee degmada Wadaamago. imtixaanku shalay noo bilaabay maanta waa maalintii labaad si fiican oo wanaagsan ayuu run ahaantii inoogu socdaa oo qurux badan oo wanaagsan. ilaahay waxaan ka rajeynayaa inay guul gaaraan dhammaan ardayda labadan goobood. bismillaahir rahmaanir rahiim. magacayga waa Maxamed Aadan Cali waxaan ahay maamulaha dugsiga sare oo Faarax Wadaamago. maanta waxaan ku jiraa alxamdulillaah rabbil caalamiin maalintii labaad ee imtixaankii shahaadiga ahaa ee imtixaanka si habsamay oo u socda wax dhibaato iyo rabshado ma jira alxamdulillaah rabbil caalamiin. ilaahay mahadi sida ay ka warbixiyeen maamulayaasha iyo macallimiintu wuxuu socdaa si habsami leh. saaka waxaan ugu soo booqday oo nala jooga gudoomiyihii gobolka Saraar gudoomiye imtixaankii indhahaaga ku aragtaa sidoo uu soconayo guud ahaan gobolka oo dhan waad soo martay. insha Allah ta'ala ardayda dhammaan qaranka meel kasta joogtana waa u ducaynaynaa wasiirka iyo madaxweynaha iyo wasaaradana waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala khayr haydiyo sida hufan ee ugu diyaarsan ardayda imtixaanaadka sanadka. wanaag iyo sharaf ayaan u rajeynayaa dadweynaha ku dhaqan dalka Soomaaliland iyo ardayda imtixaanka u fadhida ardaydaas oo aan leeyahay bash iyo barwaaqo iyo durduro ku dhaafay imtixaanka. ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolka Saraar mudane Maxamed Cismaan Xaaji Axmed iyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka Saraar Maxamed Maxamuud Cabdi Caynaashe ayaa ardayda halkaas uga soo jeediyay talooyin ku taxalluqa habsami socodka hawsha imtixaanka, waxayna guul u rajeeyeen guud ahaanba ardayda kala duwan ee sanadkan imtixaanka u fadhiisatay ee gobolka Saraar. kormeerkaas nagu heliyay nagu hogaamiyo barisaafka gobolka oo goob soo marnay shalay maantana waxaan ku kormeernay degmada Wadaamago. guud ahaan si habsami oo fiican ayuu uga socdaa maanta gobolka Saraar imtixaankii sidii loogu talagalay. waxaan ugu bishaareynaa insha Allah ta'ala inay guul ay ka gaari doonaan ardayda gobolka. talayna waxaanu ka soo furnay degmada Caynaba iyo degmada Og. maantana waxaanu joognaa degmada Wadaamago oo runtii iyaguna imtixaankaas galay maalintiisa labaad. ardaydana waa la soo dardaaranay. kulley imtixaanku waxa weeyaan wuxuu la mid yahay imtixaanadii hore caadiga ahaa. ardaydana waxaan u rajeynaynaa khayr badan in ilaahay imtixaanka u fududeeyo oo ay keenaan marks ka fiican. kulley dardaarankaanu siinayna waxa weeyaan inay ardaydu ay ka digtoonaado waxyaalaha imtixaankooda sababi kara inay ku waayaan oo asluubtii iyo akhlaaqdii imtixaanku lahaana la ilaaliyo. iyagana waxaanu kula dardaaranay runtii in ay waxa ka foojignaadaan imtixaankoodana ay kalsooni ku qabaan. ninkii wax soo bartayna runtii isku kalsoonaado kii kale nasiibkiisa ka qaado. runtii anaguna dhiirigelin bay u tahay inaanu soo kormeerno imtixaankaasi. kolley 4 degmo ka socdaa si nabadgelyo u socdaa wax caqabada iyo wax ma garanaysaa mushkilada midna kama dhicin. Jaamac Boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynaba.